ورحمة الله وبركاته وأنا السلام يا ولا الله الصوماليات ميل والبا أدو قلنا شهين دوني دا وأنا سلام يا وقارع صومالي أرتر بدن وناكسن بها الله دمانتي ميل بتكونوا شهين إن شاء الله رمضان تن خير كذا إلهي هاي نصيو رمضان كذا إلهي هاي نقارسيو باش برواقه نقول قارسيو إلهي هاونا حريستو انتي دمتي كوروناياشان يا لبدان سنة لا سلفدين حنونادو إنك سيو قرنايين إنay socdaan inta caafimaadka qabtana Allah haw siyaadiyo inta xanuunsanaysana Ilaahay ha caafiyo aamin ducada ku soo dara waa bariir Ramadan waa xilli ma garanaysaa barakaysan oo khayrkiisa wata horta walaalayaal waan salaamay laba arrimood baan soo galay meeshan mid waxa weeyaan inaan walaalahayga la qaybsado Ramadaanta soo galaysa in aan la qaybsado la hadlo oo sida waxyaamaha muhiimka ah aan bulshadeeda la hadlo iyo dadkayga iyo eheladeyda mid labaadna waa information kale oo aan sheegi doono insha Allah horta Ramadaanta tan ka dhaco qofku ma garan karo runtiisan aaminsanahay dambiyadiisa sidoo uu galay qaarna uu yaqaan qaarna ma yaqaan soo talaalay qaar kaftanka ayaaba kaftanada qaar kood ayaaba dambi ku keenaya horta anigu runtii waxaan ogahay inta aniga asxaabtayda oo fanskayga oo igula jira Snapchat oo igula jira Facebook oo igula jira TikTok ما استعماله وداودا لكن ما قالوا واحد من أوجه هرتا أنا نبيكم قبا إيه نبيكم قبان وايو أنا أمك وقفنا هم داير هذا قفنا سلام كبدن اسمه دهنو حليها مهم كما هنا أنت بدن سؤالي ويدينا كجواب أو عادي ما هنا واحد بعتها كله وحن جعلها إن إيجا شيء جنين أنا وحن جعلها إن أنا كشيء جنين وايو مدة تدبر سنة كبدن يفرين هاي إما قاصدت سنة ملايا فيسبوك إيجا واحد بعتها كم شيء جنايو الحمد لله حتى قف هذا أركب حقراية وقفا يوجدون أنيجا فيسبوك أو أنيجا فولو جوه أو قرد الرسو هذه وكلا فهنسية هاي مركا ولا الله يصوبن أنا كل حق وذا شرف أي جمدين حق وذا أنا شرف جمدينهن واحد بعتاكم أركو واحد بعتاكم قبو وان وذا شعله هاي لقن كوذا دبي عدو وذا تيرتان كوذا الله بيت هدي وح أي تران إنك لقارين لعله هوايا ما هو أنا وحم أوجي عفسي يسامح ولا ليال أنا ونساسو كله وأنا عفنايا هدي واحد مستيقظ حتى الآن ورك ما هيو ما أركن حتى تاسع عفس كوا مهم قفل بنو بهاي حلقان السجدان وجرتها إنه مدع فيه السجنا وعفس طلبه يسوون ذاك عفيه ووح أو مهم أو شخصيا قفقة أوفي عن سنة هاي ده رمضان كريم بان له دمانتين كل يلا والله وأنا جعل هاي أنا كلين my heart باتين taas waa taas taa markaynu ka nimaadno arrin kale oo iga yaabisay oo aan somehow fahmi waayay baa jirta arrintaas waxa weeyaan waxa week ka hor ii soo diray laba qof oo fanaaniinta waa beriya ima malay inay muhiim tahay magacoodina ahaan ka sheego waayo iyagu ma kala jeclaba social media kuma jiraan marka maadaama qofku fankeena iska badaayayba qof soo jiro magaciisu aad u weyn yahayna uu yahay oo dunida dhan imika Soomaali meel ba joogto ka taqaano muhiim maaha inaan aka magaciisa ku sheego aniga waxay iga mudan yihiin inta ay saaran yihiin laakiin waxay ii soo dhiibeen video oo ka yimid Muqdisho videoga ii soo dhiibeen markaa waa inaan yaro xanuunsanaya inaan ka yaro xanuunsanaya sida aan informationka ku hayo oo la ii sheegay waliba kuwa
labadaa qof ee waa beri ah ee fanaaniinteeni hore ah oo Soomaaliya tagay qaarkood ayaa soo arkay fiidowgana soo qaaday jeclaystayna inay ummadda la wadaagaan si loo caawiyo ilaa haddana qoyskaas iyagaa beeliya oo maxaan dhahday labadaa qof ee fanaaniinta ayaa beeliya oo biilkiisa meel saaray iyo cuntadiisa iyo midhaa meeshuu degan yahayba ku caawiya laakiin biil arrin ka weyn baa jirta arrintaasna waxa weeyaan qofkaas gabadhaas iminka oo aan ka hadlayo waana daawan doontiin videogeeda waxaan soo gelinayaa halkan iminkaan ka wada hadlayno inkastoona professional ku ahay laakiin am try inaan soo dhex geliyo xaggan saad ila aragtaan afar ciyaalay leedahay ka ugu yar ayay gacanta waxay uga dhigan tahay wadnaha garabka maa gudaha ugu jiro ma garanayo adigu wayna go-an tahay saasay u gaaban tahay saanay tahay kolley dhibaato ku qabaa waxaa la yidhi cuntadii dhanneedina ku noolayn ma cuno oo looma ogolo dhakhaatiirta u diidaa la yidhi sababtoo jirkiisa kuraya kabacdina midha gacanta hoos u gashay ayaa wadnihiisa riixaysa oo dhibaatay u keenaysaa waana ila daawan doontiin kii oo laga hadlaayo waad arki doontiin gabadhaasi odageedina ma joogo waa la waayey dhimayaa noolyaa meel kuma sheegi karto arrinta kale oo iga yaabasi waxa weeyaan waxay tagtay ilaan dhakhaatiirteennii digfeer iyo mid kaloo magaciisa lay sheegay waa niloobay imika qolyaha turkiga ayaaba dhakhaatiir uga furan tahayoo anumaan tegin weli dee dhulkii oo maxaa dhadayay meesha ku shaqaystaba kuwaas dhakhtarkii markaad ilmihii u geyso ay maraan ay ku eegaan oo lacagaad ka dhiibto oo jaakinkii lagu maro walaalayaal saynu wada ognahay muhiimaddu waxa weeyaan qofka in la siiyo riboodkiisa soo maaha macnaha caafimaad darrada la igu sheegay riboodkayga waa inaan helo lacagaan dhiibtay waxaan ogaaday xanuunka haya just inaad sheegitaan oo keliya uma baahni waa inaan riboodkii kaa helo sheekada iga yaabisay aniga oo iga dayila waxaan la yaabanahay on weliba aan jeclaan lahaa sugaan sheegi doonaa taas riboodkii laguma siinayo dhakhtar bay kuu dirayaan dhakhtarkay kuu dirayaanna waa turkiga waxay doonayaan dalkooda inay kuu diraan iyagoo u danaynaya dalkoodii dhakhaatiirtooda iyo waddankooda horumarsanaya ayaa adiga riboodkaagii lagaa xayirayaa iyagoo dalkaagii jooga walaala siday ku dhacday arrintaasi waa sheeko iga waaweyn anigu sheekadan baan ku ogaaday waan maqlay turkiga waddankooda markaad ugu tagto dhakhaatiirtooda inay dadka dhibaateeyaan qaar Soomaaliya la shaqeeyaan waa maqlaayay ka hor baaba dalkeena inta loogu yimiday ayaa riboodkayga lacagtaan ka dhiibtay caafimaad darrada ama lagu hay go'naato ama dhakadu hay go'naato meesha rabta hay go'naatee aan anigu dalbaday oo aan doonay inaan ogaado waxay hayaa aan markii aan la ii sheegay de inaan riboodkaysiisa samaaha in riboodka aad ii diido aad igu xujayso turkiga tagaysaa dhakhtar baa tagaysaa soo diyaar garow adiga iyo lacagtaada iyo baasaboorka noo keen fiisaan kugu dhufanaynaa fiisaha turkiga oo dal kale kuu diiday inaa aadid excuse me xirmihii ani meeshaan doonaan aadi karaa soo maaha meeshii aniga danii aad inkastoo qofka Soomaaliya joogaa uuna meelo badan ba tegi karin halkaasaaba kuu ogolba fiisii runtii laakiin haddana inay iyagu ku khasbaan dadka in turkiga uun lagu xawilo waa maxay waxaas I don't understand maan fahmin waxaa kaloona fahmin aniga cudurka aad igu sheegtay ama gacantu ha qalqaloocato ama naaska bidixdu hay go'naado ama wadnuhu dhinaca jeesto whatever is ay tahayba riboodkayga aad adigu dhakhtarnimo i marisay waa inaad gacanta iga saarto ilaa markaad aniga dhakhtarka aan marayay lacag baad iga qaadatay inaan ogaado barbalankii hayo barbalankii waad ii sheegtay lacagtina waad qaadatay dee maxaa riboodkayga ii siin lahaaday markaa gabadhan waxaa lagu sameeyey sida aan anigu isoo gaadhay informationka riboodkeedii in loo diiday laguna xujeeyey haddii aad doonayso dhakhtar inaad in cunugaaga geysato lacagtaada soo qaado soo diyaar garow baasaboorkaaga noo keen iyo ka baybiga yar annagaa safaaradda turkiga kuugu dhufanayna
kabacdi dhakhaatiirtaasaad u gudbi doontaa oo dee xaafadda iyadaa turkiga ah fahano haye lacala haddii awoodi karto adduunka meeshaan taraqto way ka tegi kartaa soo maa ma khasabaa inaan riboodkayga ku xirto inaan waddankaaga keliis ka soo daweeyo war annagaa yaab aragnay war bal hadda ila arka wuuna yaalo maanigaa khaldan ma iyagaa khaldan bal hadda waxaanaan la yaabanahay huuna bal ila arka hadda waan fajacsan yahay anugu gabadha aniga aqoon ma lihi weligay lama hadlin ilaa abtuna waa laga yaabaa inay daawato fiidiyowgan haddaan ku hadlayo laakiin weligay ma arag anugu inanta lamana xiriirin waan kuu sheegay nii sheegay fanaaniinta waa beri ayaa tegay muqdisho soo arkay problemkeeda waxa lagu xujeeyey inay ilmuhu aabahood nolol goyri midna lagu haynin inay dhibaataysan tahay xitaa riboodkii ay doonaysay inay la tagto meelaha soomaalida ama wariyayaasha oo ay tiraado caawiya waa ii jeedin saasaa lay leeyahay inaan turkiga tago ama meel tago aan iska soo daweeyo ay ka oran lahayd waa loo diiday maalinta aad keensato lacagta aad soo diyaar garowdo baasaboorka keensato annagaa safaaradda kuu geynayna ku ye hay aboowe annagaa kugu soo dhejinayna saasaad u baxaysaa bal hadda bointiga aan ka hadlayo haddaad fahanteen ilaa af soomaali baan ku hadlaya inaad fahanteen baan u jeclahay adiga xanuunka aan kaa helay riboodkiisa ku siin mayno oo waxaan ku siin karnaa marka aad dalkayga iska soo daweynaysid baasaboorkaaga noo keenaysa anaga fiisaa kugu dhufanayna ee lacagtaada soo urursee maxaa dhahay baasaboorkaagana noo keen warkaas may naga dhaadhacay saasaa inantaa lagu yidhi dee waxaana laygu yidhi waaba dhaqan ay leeyihiin fanaaniintan imika aniga iisoo dhiyo videogan mid ahaan walaalkeed ayaaba lagu yidhi iyadoo baasaboor ingiriis sidata sidan oo kale marka waxay u tiri wax inanta ku cusub maaha waa dhaqan ay meesha la fadhiyaan dee anigu dhaqankaa waaba ka soo horjeedaaba de bal hadda ila arka how is possible waa inaan riboodkayga helo faritaa yar hadday xanuunaysa aniga oon dhakhtarka tago ya riboodkayga caddaana lay siinayaa amaan isdaweeya amaan iska daaya amaan jarmal tago amaan jabuuti tago whatever is amaan somaliland tago maxaa ka quseeya riboodkaygii weeyaan kani weliba anoo free laygu sameeyey adoo lacagan ku siiyay sadii igu dili kartaa riboodkayga huuna kollay garan mayna siday ku heleen inay saa sameeyaan iyo awoodda ay sidaa ku heleen anu ma garanayo arrinkaana anigu waan kasoo horjeedaa runtii in qofka riboodkiisa loo diido walaalayaal soomaaliyay halka horta dadku waxay dhahaan soomaalidu iskuma hiiliyaan dhanka marka laga dhinac markay ka eegaan weeyaan laakiin dhanka fiican marka laga eego soomaali oo kale horta ma jirto dunida kusoo wareego soomaali oo kale ma jirto soomaalidu waa dadka iyagoon ku garanaynin oo ku arkin aan ku maqlin aan ku wicin isku dayaya inay gebigoodaba dhibaatada ku haysa hadday barala-aan ku hayso haddii ay gaajo ku hayso haddii aad xanuunsan tahay inay ku wada istaagaan oo nin walba inta jeebkiisa ka go'do kuu soo diro isagoon qofna weydiin aniga waa markii u horreysay oon arrimahan oo kale ka hadlo waan jeclahay inaan ka hadlo waan jeclahay dadka dhibaataysan inaan ka hadlo laakiin waxaan islahay waa lagaaga sorry walaalayaal waa professional baa lagaaga yahay oo anuba is idhi malaha ma ogi laakiin markaan arko meelahaas in lasoo dhigay dad oo aad ka naxaysid gacantayda wixii aan awoodaan ka geystaa ummadda soomaaliyeedna waa in iga badan oo anigoo kalaa iyo in iga sii xoog badan oo samaysa iyaguna dhammaantoodna way sameeyaan kolay shan gani ku tahay dhammaantood soomaali ma ka joogsato qof wax loo diray laakiin walaalayaal anigu waan ogahay inaad hor garab istaagaysan qofkaas soomaaliyeed iyo qof walba oo laynii soo sheego special dadkeena jooga wadanadeeni soomaaliyeed markii dhib ku dhaco intayna qurbaha jooga waaba waajib ina saaranba maadaama qofkaasi uuna lacag haysan inuu u dhinto iyo inaynu caawino ay labadaa mid un tahay inaynu caawino waa waajib ina saaran waa dadkeennii waa inagii dee inagaa u joogna xaggan hadday inaga 10 gin waxbay nala ahayn iyaga 10 la isugu ururiyo ayay ku heli karaan wax walba marka horta midda waxaan ugu hambaliyanayaa Soomaali Maxamed oo dhan
هكلا الريبن انت مقع الصوماليات شيغتو دن والله انا waxaan ugu hambalyeynaya inta aan goobjoog ahaa ay caawiyeen oo kor u qaadeen oo markii la soo dhigayna aan ooyayay markii la caawiyayna aan hadana farxad ooyay alxamdulillah halkaas waxaanu ka nahay qani waynu ka wanaagsanahay halka marka anigu kama hadlay gabadha loo kaliya waa laga horeeyay wad ogtihiin وانا لقى دنبين دونا بل هلكا aynu ku adeegno wax badan oo in la dhaafay way jiraan hadaynu Soomaalinahay laakiin arintaas yeena dhaafay macna waxaan ka wada wax badan oo Soomaali dhaqanayna u lahayn waxyaalo badan ahaa waynu way soo khafiifeen baan ka wada oo sidii hore looguma dhaqmo laakiin arintaas waa xoojisaan waana ugu hambalyeynaya ummadda Soomaaliyeed oo dhan bal hadda fiidiyoogan ila daawada inanka yar iyo hooyadii iyo information-kan ila daawada waxaan idila wadaagaynaa sheekada wiil yar oo dhakhaatiirtu ay ka joojiyeen cuntada si aan jirkiisa u korin waa cajiib Sadaam Cabdicasiis qayb ka mid ah gacantiisa ayaa wadnaha ku dul dhegan halka inta kalena ay banaanka taal cudurda iyo garabka ayaa cadaadis ku haya wadnaha oo udub dhexaad u ah nidaamka wareegga dhiigga taasi oo mar walba halis gelin karta naftiisa gacanta intaan banaanka taala intaan dheerna inta kaga jirtaa ilaa qoorta waxay kaga jirtaa ilaa iyo bartaan ilaa iyo inta kaga jirtaa garabkiisa dhammaan wadnuhu ka saaran yahay cuntooyinka nafaqada leh iyo cabitaanada miisaanka kordhin kara ayaa laga joojiyay si aysan dhaawac wadnaha u gaarsiin garabka iyo cudurda gudaha ku jira qof cunto cunaya haduu arko wuu ooynayaa cuntadii haddii la siiyo jismigiisa wuu korayaa sida maangahaas yariiska ama faantadan ay siir kale oo kaleeta basiiba ay ku dhaheen caana ayaa ma dhaweyd siin jira caaniyaha siinina hadda leedahay caani borotiin leeyin wuu korayaa ay dhaheen gacantii jismigiisa hilibkiisa baa koraayo wadniye ka saarataan walow hooyadii ay caruur kale dhashay haddana Sadaam ayaa ah cunuga walwalka ugu badan ku haya maadaama uu baahiyo gaar ah qabo isaga fadhiisana ma yeelayo jiifana ma yeelayo istaagna ma yeelayo markaas isaga wuxuu maskaxdiisa ku soo dhacdo ayuunbuu samaynayaa adiga hadda arkaayo sida hadda uu yahay soo ma aragtidadba ma awoodo inuu u seexdo dhinaca bidix sababtoo ah naqaska ayaa ku dhigaya gacanta midig oo u bid qabta dhudhunka iyo calaacasha bidix oo qaybi gudaha ku jirto ayuu adeegsadaa habeenkii sidoo kale markii habeenkii hurdada kaleete inuu dhinacaan u seexdo waayo uu caburmaa uu kululaana uu dhiidayaa waxay noqonaysaa habeenkii 3 jeer 4 jeer oo kaleete ilaa ama ilaalisid yani u soo kacdid ama waxay noqonaysaa haduu xanuunsan yahay ilaa u soo jeedidba inkastoo aan aabihiis nolol iyo geeri toona meel ugu ogeyn haddana hooyadiis ayaa tuurta u ridatay mas'uuliyadda isaga iyo walaalihiis balse ma awoodo inay u qaado dhakhtar dalka dibadiisa ah waxay tahay mar hore wadanka ka tagay dadkaas hadii dhulalkaas qabanay ayuu ahaa kadib mar waa dhintay baa leedahaa mar waa la waayay baa leedahaa markaas aniga inuu dhintayna ma qiri karo inuu nool yahayna ma qiri karo laakiin in la waayay unba kuu sheegi karaa noloshiisa iyo farxadiisa ayaa dhakhaatiirtu sheegeen inay isku xiran yihiin walow ay dah qaadeen inaan cusbitaalada Soomaaliya waxba looga qaban karin insha Allah waxaan rajeynayaa kulay ilmahayga aniga ilaa yani iyaga maadaama ay dhaheen gacantii wadnaha ay ka saarantahay waxna lagama qaban karo wadankana wax loogama qaban karo dibadoo kala wax looga qaban kara ay ugu dhaheen insha Allah waxaan rajeynayaa in Ilaahayna ii caafiyo intii islaan ummadda Nabi Maxamed sheegtaan oo ii soo caawiso mar walba oo Sadaam uu kordho isagoo dhakhtar helin waxa laga filan karaa halis wadnaha ah maadaama laga hayo xubinta ugu muhiimsan xubnaha bini'aadamka Maxamed Muuse Tarsan warbaahinta qaranka Muqdisho
waxaan jeclahay dhammaantiina wada daawateen aniga waan ogahay walaalihiina Soomaaliyeed inayna u baahnayn in wax loo sheego wixii ay arkaan inay wax ka qabtaan nin walba tamartiisa waan ogahay laakiin walaalayaal waxa waxoogaa ila yaab noqotay riboodka si la isugu diidi karaa intuu dalkaygii u dhex yimaado oo dhakhtar iyo wax dhakhaatiirtaydu dhakhtar ku darsado mise ka garab dhistaba dee ma ogi digfeer iyo meelaha la ii sheegaya imika si informationka ugu soo gaadhayo in aniga lacagtii aan dhiibay aan doonayay inaan xanuunkayga ku ogaado wadnahayga ama beerkayga ama kelidayda ama dhabarkayga whatever iisa ama qoortayda dee waa inaan riboodkayga helo soo maha bal hadda arrintaana ila arka intaasaan usoo galay maanta labada shayaadood marka ugu horeysa Ramadaan Kariim inaan idhaho walaalahayga saamaxnaa kun ifrawan aan ku idhaaho talabaadna waa sheekadan oo iga yaabiyey riboodka la isku diidayo iyo gabadhan inaan informationkeeda soo gudbiyo maadaama la ii soo dhiibay inaan iska wareejiyo halkan waxaan kaloon kala hadlayaa sorry inamadeenna youtuberka oo ku wanaagsan xagga garab istaaga qofkii ciilan ama dhiban ugu horeyn waxaan la hadlayaa ishek laakaha media inuu asagana arrintan ka hadlo oo qofkan miskiinka wuxuu qabto ama ribood ha helo ama ummadda Soomaalida loo dhex galo waxaan kaloo la hadlayaa boodhariga caashaqa maslax baan la hadlayaa quruxda qoyskaan la hadlayaa maxamed buskud baan la hadlayaa intuba waa in isku xidhan oo dadka Soomaaliyeed u taagan qaybta xumaha danigu ka aragtiin inta badan bulshooy iyo marka sheekooyin ay socdaan oo dadku isku dhagaan dee oo dad isku dhagan ay soo galaan meesha dee way ka hadlaan laakiin khayrkana way ka hadlaan wiilashaasi wanaagana way ka hadlaan dumarkana way caawiyaan anigu inamadaasi inta magacooda aan sheegayba halkaasay ii saaran yihiin walaalayaal marka inta aan magaciina soo wada sheegay wiilashaasow waxa ay ilaahay bal fiidoogan aniga waad iga hadal badan tihiin waad iga fiican tihiin soo qaada ka hadla maxaan dhahayay hadaweynika ana hadal ni tilmaami maayo uun waad iga hadal badan tihiin haye dhammaantiina waan wada salaamayaa Ramadaan Kariim ayaan ilaahay dhammaantiin oo dhan Soomaali meel bay ku nooshahay nabad korkiina ha ahaato السلام عليكم